maxkamadda magaalada Hargeysa ayaa maanta soo saartay in hoteelka la yiraahdo Beerta Libaaxyada ee magaalada Hargeysa laga mamnuucay in uu shaqeeyo wixii ka dambeeya 6 maqribnimo ilaa waabarigii. Maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in hoteelkan ciidamada booliisku ay soo dacweeyeen kuna eedeeyeen in ay habeenkii ay ka dhacaan fawaaxish ay ka mid yihiin sida ay sheegeen heeso iyo music iyo habla qaawan oo halkaas yimaada. Habeenkii sanadka cusub ee soo galayna waxa booliisku ay ka joojiyeen kana soo dareereen hotel kale kooxda fanaaniinta xidigaha oo markaasi iyaguna xaflad ku qabay halkaasi oo cabasho laga muujinayo waxaana dadka hoteelada habeenkii ku caweeya iyo mulkiilayaasha hoteelada iyo fanaaniintuba barnaamijkan ay ka cabanayaan. Haddaba waxaa magaalada Hargeysa khadka si toos ah hadda ugu jira abwaan Xasan Dhuxul Laab Saalax oo arrimahan aad ula socday. Abwaan, sideed u aragtaa go'aankan in fankii gaar ahaan bandhigyadii lagu soo dhigi jiray habeenkii Hargeysa laga mamnuucay? horta dhowr bilood ka hor ay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay in hoteelada laga mamnuucay in habeenkii lagu qabto xaflado. nuxurka go'aankaasi ka dambeeya waxaan filayaa inuu yahay mid lablakaca isla mar ahaantaana baalmarsan sharciga. laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye waxa dembiya in hoteeladu ganacsadaan mise waxa dembiya fanka mise waxa dembiya in dadka la maaweeliyo. dastuurka Somaliland qodobkiisa 16aad farqadiisa 1 iyo tiisa 2 iyo tiisa 3 ba waxay qaranka ku waajibinayaan horumarka suugaanta iyo fanka iyo dhaqanka. waan gartay markay sidaasi tahay laakiin waxa la idinku eedeynayaa hadda waxa aan gacanta ku hayaa maxkamadda gobolka Maroodijeex warqadii ka soo baxday oo la leeyahay waxaan meesha ka socda habeenkii dumar iyo habla aan asturnayn muqaadaraad balwado goobtaasi lagu dhex isticmaalo music oo dadkii ay ka seexan waayeen. waxaan miyaysan ahayn wax in dawladdu ay wax ka qabato loo baahan yahay oo dhaqankii iyo diintii la ilaaliyo sida ay sheegayaan? wax kasta oo dhaqankeena iyo diinteena ka hor imanaya dawladda waan ku taageersanahay, laakiin waxaan filayaa in arrimahaasi ay food saare tahay. annagu dhaqanka iyo diinta wax kullida ma wadno, waxaan wadnaa waa fan iyo suugaan ma garanayo goorta ay noqdeen mamnuuc. maxaad ugala jeedaa Laab Saalax food saare? maxaad ugala jeedaa? waa arrin ilaa imika qiil cadaana wax cadaana looma hayo. dembiga la sheegay ee lagu mamnuucay hoteelada miyaanay ka horreynay soo bandhigaan oo ummadda loo soo bandhigo? marka ma waxaad leedahay dadkan magaalada degan iyo dadkii dariska ahaa waxa ay ka cabanayaan oo waxba kama jiraan oo been bay sheegayaan intaas oo dhan iyo sawaxan kala sheegaya buuqa muusiga aad magaalada ka abuurteen? buuqa iyo muusiga horta xaafado laguma qabanayo, hoteelada lagu qabanaya. dawladdu tiyaatarradii bay iibisay, tiyaatarkii way iibiyeen, hoteelada lacag baanu bixinaa. mar hoteelkii baa ganacsanaya, mar dadkii baa la maaweelinaya, mar xidigu waa commercial. markay sidaasi tahay arrimahaasi lama odhan karo waxay ka hor imanayaan dhaqankii iyo diintii, waxaanay buuq iyo khalkhal gelinayaan dadkii iyo dalkii. waan gartay marka waa yahay suugaantu kaalin. waan gartay Laab Saalax, marka suugaantii si loo sii wado oo saad sheegaysid fankii uu sii hana qaado isla markaana wax xadgudubyo oo dhaqanka ka soo horjeedaya diintaana u dhicin, sidee la isku haleeshiinaya? maxaa tala? arrintii habeenka dhaweyd ka dhacday hoteelka Crown xidigahoo keliya taa joogay, waraysi bay bixinayeen, booliiskaa soo galay waanay joojiyeen. arrintaasina waxay ka hor imanaysaa xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka dastuurka u damaanad qaaday. faldambiyeed ay gacanta kula jireen oo markaasi dhacayay ma jiro. annagu ma taageersanin wax kastoo dhaqanka ka hor imanaya, laakiin dawladdu iyo ciidamada amnigu moobilada la dhacayo iyo xadgudubyada isteeshinada ka jira la doonaya in wax laga qabto loo baahan yahay, laakiin looma baahna meel laga faraxsan yahay oo dad laga maaweelinayo in rabshad iyo buuq lagu abuuro. waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantahay. bulshada qaybaheeda kala duwan aad iyo aad baad kugu mahad celinayaa Xasan Dhuxul Laab Saalax abwaan, aad baad u mahadsantahay.